Assalaamu calaykum. Muuqaalkan maanta waxaan uga hadli doonaa weliga qofna ha aamin oo qofna ha ku kalsoonaan. Waxaan rabaa muuqaalkan kilibkan yar inaan la wadaago. Inkasta uu yahay waxyaalo la iska duuduubay, haddana wuxuu ka hadlaa waxay tahay xaqiiqada jirta. Bal fiiri, muuqaalkan markaa fiirsato waxaa laga yaabaa in qalbigaaga ku soo dhaco galgacal iyo naxariis oo u muujinayo gabadhan wanaag uu u sameynayo. Ninkan u jeedaan jaagadiisa ayuu u bixiyay gabadhan. Wuxuu ka ilaalina waxay tahay dhiiqada iyo qoyaanka ay ku dul soconayso. Wuxuu ka doorbiday in jaagadiisa ay ku dul socoto. Jaagadii u dhigay, mar labaad u dhigay, balse ugu dambeyn maxaa se dhici doona? Tani waxay ku tilmaami karnaa waxay tahay dadka waxaad arkaysaa dad badan oo wanaag badan kuu sameynaya oo waxyaalo badan kuu sameynaya, balse ugu dambeyn noloshaada dhan baabi'inaya. Haddii aan tusaale ahaan u soo qaadano dhanka iyo xiriirka jacaylka, waxaad arkaysaa wiilka inuu dhahayo gabadhan is jecelnahay, kalsooni aan ku qabaa, waan aaminsanahay inay jeceshahay. Sidoo kale waxaa laga yaabaa gabadha inay dhahdo wiilkan aad ayaan u jecelahay, isna wuu i jecel yahay, waan ku kalsoonahay, isna wuu i kalsoon yahay. Maxay yiraahdaa kalsoonida xitaa inay gaarsiiso xitaa heer ay dhahdo nafsadeeda aan kaga kalsooni badannahay. Kalsoonida xad-dhaafka badan runtii waxay kugu ridaysaa waxay tahay god xun. Bal fiiri, xitaa maanta labada qofood is qaba oo reerka wada dhisan, waxaa laga yaabaa inaysan kalsooni aysan jirin. Waxaad arkaysaa xaaska in maanta ninka qaba maanta dhan taleefankiisa ay barbaarayso, oo maanta dhan ay raadinayso, su'aal badan ay weydiinayso, ay dhahayso maanta maxaa jiro, is carfinaysaa, waa is qurxinaysaa, maanta waa labisanta, halkee loo socdaa, maanta kuma bogin looyaha. Marka waxyaalahaas kale in dhahdo, xitaa waxaa laga yaabaa haweenada qaar kuu soo daayo dhahdo adiga maanta maxaa jira, maanta halkee ku soo dahday. Taasi kuma tilmaami karo way ku kalsoon tahay, kalsooni kuma tilmaami karo. Bal fiiri, maanta sokorta iyo cusbada muuqaalkooda waa isku mid, balse waxay ku kala duwan yihiin waxay tahay waa dhadhanka. Dadkana waa sidaas oo kaleeto. Weligaa qofna ha ku kalsoonaan oo kalsooni badan ha siisan. Maanta ka waran anigoo sida quraarad yar, quraaradaas anoo sikadiisa ay iga dhacdo, bal ka waran dhulka marka iga dhacdo kadibna haddii aan dhaha ka waran quraaradan waxaa rabaa inaan isku toosiyo ama sideedii hore aan ku soo celiyo, ma laga yaabaa sidii hore inaan ku soo ceshmato? Jawaabtu waa may. Kalsoonidan waa sidaas oo kaleeto. Salaam calaykum. Muuqaalku wuu dhammaadna.